الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين warbaahinta halkan ku sugan magaalada Burco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta ay taariikhdu tahay 5 bisha 12 2020 waxa aan shirkan jaraa'id magaalada Burco ugu qabtay isla markaana warbaahinta kala hadli doona xariga iyo xukunka ku dhacay gudoomiyaha guud shirkadda ama muqbahiyaha Astaan Cable xukunkii ugu dambeeyay shalay dhacay waxa uu ahaa in la xukumay oo lagu xukumay 5 sano xariga Astaan oo la xayiray iyo ganax lacageed oo dhan 2 milyan oo shilin Soomaaliland waxaynu ka warqabnaa in Cabdimanaan Yuusuf Maxamed la xiray markii ay bishu ahayd bishii 10aad aan idhaahdee bishii 7aad aan idhaahdee 2020 ayaa la xiray bishii 11aadna xukunkiisa soo baxay xukunkiisa oo ku soo beegmay xilli ay dadku aad ugu mashquulsan yihiin arrimo badan oo jira oo dadku muxuu ahaayay meel kale lagu mashquuliyay lagana mashquuliyay meelo badan ayuu xukunkiisu muxuu ahaayay ku soo beegmaya si duuduubana maxaa way xukunkiisu inuu soo gaaray maxaa 5 sano loogu xiray maxay qodobadu haayeen eedeymaha waa maqalay eedeymihii lagu eedeeyay ma iyagiiba oo cadayma loo helay mise waa wax kale arrimahaas ma cadda waxyaabaha inuu baahanay oo ugu horeeya waxa weeye aan doonaynay inaynu fahanno waxa weeye xukunkan ku dhacay 5 sano iyo sababta telefishinkii loo xayiray maxay tahay ma aha sax in qof la iska soo eedeeyo sufid loo xukumo iyadoo aan dadka faahfaahin laga siin oo aan isla markaana muxuu ahaay aan cidi hadal soo hadal qaadin oo muxuu ahaay saa lagu dhaafo muruur al-kiram ma wax sax waxa weeye waxa saxdu waxay tahay in la ogaado xaqiiqada waxa ay tahay ninkan waa la eedeynayay eedeymihii maxaa sax ka noqday maxaa 5 sano loogu xukumay maxaa ganacsigiisii uu dhaqaalaha badan ku bixiyay maxaa loo xayiray waajib waxay saaran tahay cidda soo qabatay cidda muxuu xukunka soo saartay inay faahfaahin ka siiso taa horta waxaan uga fadhinaa ciddii eedeynaysay ciddii xukunka soo saartay faahfaahin buuxda horta koow waan uga fadhinaa taas waa qodobka labaad maamulka muqbahiyaha Astaan Cable waxa ay noo xaqiijiyeen markii la xirayay Cabdimanaan Yuusuf Maxamed in laga qabtay mar uu ka soo baxayay hoteelka Damal ee magaalada Burco horaantiisa lagu qabtay ay qabteen niman baaskoolada sita baaskoolada lagu qabtay gaari lagu qafaashay afduub baa halka ka dhacay muddo 9 maalmood lagama warhayn sida ay noo xaqiijiyeen muddo 9 maalmood saldhigyada laga raadinayay booliska laftiisa la raadinayay say noo xaqiijiyeen oo meel kasta muxuu ahaay laga raadinayay istabaha iyo meelo badan raadin baa la sameeyay 9 maalmood kadib muxuu ahaay Cabdimanaan la keenay xarunta baarista dambiyada ee loo yaqaan CID-da halkaas muxuu ahaay uu ka soo bilaabmay marka la arkay Cabdimanaan intii uu xidhnaa ee aan la keenin xarunta CID-da ama xarunta baarista dambiyada waxay noo xaqiijiyeen maamulka Astaan Cable in niman la shuraako isaga Cabdimanaan shuraaka lah oo uu siiyay ama Astaan Cable kula leh 2% oo uu ka mid yahay nin la yiraahdo Saad Muuse Umar ay ugu tageen meesha uu ku xidhnaa ee aan ahayn meesha boolisku xukumo waxayna u soo bandhigeen inuu ku badbaadayo haddii uu bixiyo saami dhan 50% nasiib ay yiraahdeen annaka arrinka furdaaminayna xorriyadaadana wad soo ceshanaysaa 50% nasiib ay yiraahdeen uu ka diiday ninka u tagaya siday noo xaqiijiyeen maamulka Astaan Cable waxa weeye Saad Muuse Umar laba nin baa shuraaka la
عبد المنان لما نبى شركاء الله وأنك أن شجع مجلسه يونيك لا الله يرادو عدنان السلطان حسن بالله هذا عدنان السلطان حسن لبدا نبى شركاء لكن نيك لو تجي يونيك لو تجي أو جو تجي وقيبتها وسجال كمعلومات كحدنا كب حسن جعنت بوليسكا قل كمدو لو جو تجي نيك لو تجي وسعد موسى نيك مجلسه على سعد موسى عمر محو صابر دقي وحصابر دقي بقول كيبا كونتون السي أمن السي أنو كفر ضامنه ودي دي عبد المنان بليري أرنكاس وحو حد قدب إن ضد أن أود دولدات هيسن أو أن حل هين إن أي قف محبوسة أو حتى حبسي كسان لقراني كويا هي أنت قول مدو تجان بس كولدنا لجو قبطه markii la qabanayay in ganacsigiisa la boqolkiiba 50 waa baad arrinkaas wuxuu u baahan yahay baaritaan la furo oo la xaqiijiyo siday wax u dhaceen Abdi Manaan diid booliskii la keen eedayma la soo qor xukunkii aad maqlayseen ku dhac iyadoo xukunkana faahfaahin laga siin maamulka Astaan Cable waxay qabaan oo ay aaminsan yihiin إن عبد المنان يا أستان كيبل لجو قاضي دجال دقالة لهنجريي أستان كيبل هنجري لهنجريي عدي هنجريسي أو عدة هنجريسي واقع صوب النجية يعد كدم بين كرتابة تتقرصون وده الدبدي سابتشرة إلا هنجريي نكاس أن ديجان كان سومال لنا ودلنا جناح صدق يمي هالكن يمي حقنا وولها إنه يماطه أو كجنعصده سببته عدد بدن ورهر سومال لنا وحوي دول كسومال ذا ويشوجان حرب بين جنعصي جودي ويهين قلني ما هيد إن محوها فلك النوعاسة لا يماطه قلني ما إنه نقطة هيد لما أنت إنه كام مصنوع مركا وحوي عبد المنان سيدا يشجعيان مملكة أستان كيبل ودمع على دماعسية هي مقبهيهن شقيي محوها شعبية ضيا شيء تيضا يا شيء طلاب صدي إلا هم قريو وحي هيد هدي أي دونيان إنه محوها جناسي كاسوك الفران إنه فرتان كاسوك له أو سوق ترتان كاسوك لان تلفزيون بدن بشرة تلفزيون هذا بدن يشرة تميه هو قرين أستان معنا كم يدين لكن عدة كذا يضي يأود أي محوها يوادي كستي وحوي فايل أي تهين لفرو سيدا وجد waxaan ku baaqaynaa kiiska Abdi Manaan in dib loo eego waxaan ku baaqaynaa in muxuu ahaayay daahfurnaan laga dhigo shafaafiya ku baaqaynaa in maxkamaddu kala saarto ama faahfaahin ka bixiso xukunka ku dhacay sidoo ku dhacay 5 sano ku xukunnay oo yaani telefishinkana waan ka xayirnay wax la aqbali kara ma hadii aanu faahfaahin aynu helaa دودو بحال لما تشرو قضب كيبات كحكمتي محل عدينو هيسان أرمها صورن ووحي تهاي إن محوها للو داقو يعني محوها ومدة للو داقو وحانا نقول باقية تدك الصومالية يكون لغان صومالي لان أرنكاس يعني فالكا لوغو يستينكاس قلني ماذا أهي لوغو تقول قري مدو اللي يريد محوها بقول كيبات نسي إني ديدان بانقو باقية وأي موتيان إنك حيين رنتي آمسكو ورالي هانشو يان لا بغين دتكو بغيان حرق بك بغيان دولت بك بغيان مايا إلا بغى ما هدي بغو أدقنا بغديد وحوي وكل رنيان عدة دتك بتشسة إلى محوها يسيدونا يلان سيدو كلو حنو باقي وربعينته ما أنت لا تشوف تنقوي برا أرنكا وحوي وين يدي كل لفتين ودرين كينا موجسان ما هكلينا أنا يقدو بطان وأنا بكلي أنا عبد المالك أنا هذا وربعين تروح أنا باقية إن الدرين كينا موجسان وهذا حق رادسان وحوي بريك ما أنا ذيك وقول ما نسى أنت هسان ما هي كسوق بقبينية وحسوا أنا وحوي ودي فرين ما